السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. barnaamijkeenii shalay ayaan waxaan uga hadalnay dhowr jasiiradood oo waqooyiga Yurub ku yaal oo Norway iska leedahay, laakiin ay 46 dawladood kale oo ay kheyraadkeeda la wadaagaan. muwaadiniinta wadamadaasna aysan Norway ka hor istaagi karin. linkigeeda hoos ka fiiri. laakiin arrimo kale oo yaab ay jasiiradahaasi caan ku yihiin. haddaba maanta waxaan wax ka taabanaynaa xeerar yaab badan oo halkaasi u degsan. magaalada ugu weyn ayaa waxaa la dhahaa Longyearbyen. waxaa ku nool dad kor u dhaafaya 2000. waxaa ku taala jaamacad iyo aeroboort taasoo ka dhigaysa jaamacadaas iyo aeroboorkaas jaamacadda iyo aeroboorka ugu shisheeya dhanka waqooyi adduunka oo dhan. haddaba xeerarka yaabka badan ee halkaasi ka degsan ayaa waxaa ka mid ah inay mamnuuc tahay inuu qofku ka baxo magaalada isagoo aan qori sidan, sababtoo ah waxaa ku nool xayawaanka bear ama dubbiga oo awood u leh inuu dadka cuno. mararka qaarkood ayuu xayawaankaas magaalada daafaheeda soo galaa isagoo qashinka wax ka raadsanaya. waxaa kaloo xeerarkeeda ka mid ah in la mamnuucay bisadaha, iyagoo sabab uga dhigay waxaanu badbaadinaynaa shimbiraha ku nool jasiiradaas si aysan bisaduhu u ugaarsan. magaaladaas Longyearbyen ayaa waxaa mamnuuc ka ah in halkaas qofku uu ku dhinto oo xabaash halkaas ku taala. waxa ay joojisay inay aqbasho dadka ku dhinta magaaladaas in lagu aaso. waxa ugu dambeysay dad ay aqbasho xabaashaas muddo laga joogo 70 sano. sababtu waxa weeye maadaama dhulku uu yahay dhul baraf buuxo oo goorta dadka lagu aaso jirka meydku isma bedelayo. sanadii 1918 ayaa caalamka waxaa ka dilaacay hargab dilay dad lagu qiyaasay 50 milyan ilaa 100 milyan oo ka badan 5% dadka adduunka waagaas ku noolaa. dadkaas ayaa waxaa ka mid ahaa 11 qof oo halkan ku noolaa. sanadihii kutomaadkii ayaa saynisyahanadu waxay ogaadeen in dadkii waagaas dhintay ee xabaalaha magaalada tan lagu aasay aysan isbedelin oo fayraskii dilayna weli ku dhex jiro. haddaba tan iyo waagaas waxaa la mamnuucay in meydka lagu aaso xabaalahaas. haddii qof magaalada degan uu dhinto laguma aaso halkaas ee waxaa loo qaadaa ama waxaa lagu qaadaa diyaarad si loogu aaso Norway ama meel kale.